Raila Amolo Odinga waxa uu dhashay 7 bishii Janaayo sanadkii 1945. Waa siyaasi Kenyan ah horena u ahaan jiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya oo laga soo doorto Laganta. Waa ganacsade soo noqday ra'iisul wasaaraha Kenya intii u dhaxaysay sanadkii 2008 ilaa 2013. waxa uu ahaa hogaamiyaha mucaaradka Kenya, waxa uu ahaa musharaxa madaxweyne ee ODM kaasi oo hoos yimaada isbahaysiga Azimio la Umoja ee doorashooyinka madaxweynenimo ee Kenya ee sanadkan 2022. tirada 4 jeer oo hore waxa uu soo istaagay hoggaanka Kenya, waxayna kala ahaayeen sanadkii 1997, 2007, 2013 iyo 2017, taasi oo dhammaantood ku guuldaraystay. Dhammaan xilliyadaasi wuxuu sheegay in looga shubtay doorashada, waxayna cuqdad weyn ku abuurtay qowmiyadda uu ka soo jeedo oo lagu magacaabo Luo, kuwaasi oo aan weligood ka arriminin aqalka waddanka looga taliyo. Hadda waxaa si adag ula tartamaya William Ruto oo isaguna ka soo jeeda qowmiyadda Kalenjin oo 24 sano ee u dambeysay xukumayay dalkaasi, kaasi oo halkudhig ka dhigtay hogaamiyaha qaranka xayraanka ah, wuxuuna ku doodayaa inuu hormuud u yahay bulshada inta danyarta ah. labada qowmiyadood ee ay ka soo kala jeedaan Ruto iyo Odinga oo kala ah Luoda oo uu ka soo jeedo Odinga iyo Kalenjin oo uu ka soo jeedo Ruto ayaa waxaa ka dhaxaysa xifaatan aad u adag oo dhanka hogaaminta waddanka Kenya, waxaana la filayaa in dabayaaqada toddobaadkan lagu dhawaaqo midka hogaamin doona waddankan, doorashadana lagu kala bixi doono.